akhriso maqaalkii koowaad ee ka hadlaya duqa Hargeysa oo aan meel fog ka arko inuu yahay hogaamiye soo muuqday oo ay tahay in si gaar ah dadkiisu ay u ilaashadaan noloshiisa. waa maqaal kooban oo bartiisa Facebook-ga uu ku soo daabacay Cabdisataar Cabdilaahi oo ku magac dheer Cabdisataar Sabri, isagoona isbarbardhig ku sameynaya madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan iyo maayarka caasimadda Hargeysa ee Cabdikariin Axmed Mooge waxyaabaha ay wadaagaan. waxa uuna maqaalkiisa ku yiri maayir Mooge waa hogaamiye ummadeed, waxaanan ku cadaynayaa in uu hogaamiye dhab ah yahay. hal qodob oo keliya waxaan isbarbardhig ku sameynayaa Mooge iyo Erdogan oo labadooduba wadaaga laba dhacdo oo cajiib ah intii ay ku guda jireen maamulka dawladda iyo guud ahaan geedi socodka noloshooda rasmiga ah. waxa gubtay suuqii ugu weynaa waddankiisa iyo magaalada uu maayirka ka yahay Mooge. dabka suuqa gubay wuxuu ahaa masiibo tii ugu weyneed abid ee dadkan ku dhacda, sida taariikhdu ay xusi doonto. laakiin sidee buu ugu dabaashay duqa caasimadii tacab khasaartay? sidee buu ku badbaadiyay hanti ka badan tii gubatay maadaama uu dabku ahaa mid daran oo xawaare ku faafay? cududda uu isticmaalay duqa reer Hargeysa maxay ahayd markii ay tala ku caddaatay? maayir Mooge iyo Erdogan labadooduba waxay leeyihiin laba weerood oo lagu badbaaday laba habeen oo aad iyo aad u xanuun badan. maxay ahaayeen haddaba labadaa habeen? habeenkii uu gubanayay suuqa Waaheen iyo doorkiisii hogaamineed ee uu muujiyay duqa caasimadda Hargeysa mudane Cabdikariin Axmed Mooge waxay u ekeed habeenkii la inqilaabay dimuqraadiyadda waddanka Turkiga iyo doorkii hogaamineed ee uu muujiyay markaasi madaxweynaha waddanka Turkiga mudane Rajab Tayyip Erdogan. ma jirto calool xumo ka xanuun badan iyadoo dadkaagii la inqilaabayo oo aad daawanayso misna aadan waxba ka qaban karin, ee isla markaana tahli karin in aad wax kaga qabato awooddaada maamul iyo talada dawladnimo. habeenkaa waxa uu sameeyey madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan hal qodob oo ah in uu si toos ah ula hadlo shacabkiisa, kuna wargeliyo in ay u soo baxaan banaanka oo guryaha soo faaruujiyaan, ayna gacantooda ku badbaadiyaan jiritaanka dimuqraadiyaddooda. wuxuu kula hadlay hadal ay fahmi karaan, qof kastana uu taabtay damiirkiisa, sidoo kalena xuduudaha iskaga gudbay oo xataa kuwii xag jirka ahaa ee xoogga u necbanaa dhaqanka siyaasadeed iyo manhajka Erdogan ay ku baaqaan in la taageero dimuqraadiyadda oo laga hortago in dib Turkigu ugu noqdo xukun military. sidaas oo kale maayirka caasimadda Hargeysa wuxuu la kowsaday imtixaankii ugu adkaa abid ee uu noloshiisa wajaho, sababtoo ah ma jirto calool xumo ka weyn hanti wixii ay haysteen in badan oo ka mid ah dadkaaga oo gubanaysa oo aanad waxba ka qaban karin, weliba adigoo dhowr talaabo oo keliya u jira. maadaama dhibaatada dhacday ay ahayd mid ka baxsan awoodda maamul iyo haynta dawladeed, maayir Mooge wuxuu habeenkaas sameeyey mucjiso ka yaabisay xataa masiibadii dhacday. wuxuu diray fariin isagoona toos ula hadlay shacabkiisa. wuxuu u sheegay in ay guryaha ka soo baxaan oo qof kasta wuxuu heli karo uu dabka sii faafaya uu kaga hortago la yimaado, misana qof kasta gacantiisa ku badbaadiyo hantidooda. wuxuu maayir Mooge u sheegay shacabkiisa in uu yahay maayir cidlo taagan oo magaaladiisa gubanayso oo aan awoodin in uu badbaadiyo hantidii ugu qiimaha badnayd ee ay dadkiisu ku tacbayeen 25 sano ee la soo dhaafay. hadalkaasi uu habeenkaasi jeediyey gaari meel kasta oo ka mid ah dunida. wuxuu iskaga gudbay xuduudaha ilaa qof kasta oo ku abtirsada isirka Soomaali uu is yiraahdo yaa goobta ku geeya aad waxun ka qabatide. dhawaaqiisu wuxuu hurdada u diiday xataa dawladaha jaarka ah oo markii dambe soo gurmaday oo guuro ku yimid suuqa gubtay ee Waaheen, halka cid kasta oo soo gaari weydayna ay guntiga u xidhatay inay dhaqaale raadiso si loo caabiyo shacabka hantidoodii oo dalo rogay ee halkaasi ku basbeelay. ugu dambeyn dadka Soomaalida oo dhami waxa ay qoraal iyo codba ku xaqiijiyeen in hadalkii habeenkii uu jeediyay duqa Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge uu gilgilay qulubta iyo shucuurta qof kasta oo uu gaadhay hadalkaasi, waana ta keentay maanta in toddobaad gudihii Hargeysi ay gacanteeda soo gasho hanti deeq u badan
taasoo la ii sheegay qorshaheeda in la bilaabay si Hargeysa loogu dhiso suuq casri ah oo ka weyn kana qurux badan suuqii hore u gubtay. waxa uu qoraalkiisii ku soo afmeeray Cabdisataar Sabri. Hargeysa waxa u soo baxay wiil ay tahay in garab istaagiisa lagu buuxiyo qiimo kasta oo ay ku kacayso. waana Cabdikariin Axmed Mooge. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan sii share garee oo la wadaaga saxaabtaada. hana ka ilaawin page-kan Fogaan Arag TV inaad like saarto falowna soo dhacdo. mahadsanid.